xooluhu waxa ay ka mid yihiin rukumada bini'aadamku ku nool yihiin la'aantoodna nolosha aadamuhu way adkaanaysaa haddaba dadka reer guuraaga oo iyagu jicsinkooda ka sameeya iibka xoolaha taasi oo ku xidhan hadba sida uu yahay kala iibsiga suuqa xoolaha si dadka reer guuraaga marka ay soo magaalaystaan wax ugu jarto neefka xoolaha ay soo iibgeeyaan ayaa bilihii ugu dambeeyay maalinba maalinta ka dambaysa waxa hoos u dhac ballaaran ku imanayay kala iibsiga suuqa xoolaha nool ee magaalada Burco kadib markii ay istaageen xoolihii ay iibsan jireen ganacsadaha Carbeed ee Aljaabiri iyo waliba ganacsadaha reer Somaliland ee Indhadeera Group kuwaasoo laga rari jiray dekada weyn ee magaalada Berbera tani waxa ay noqotay mid lid ku ah ganacsatada ka ganacsata xoolaha nool kuwa ka xamaasho iyagu nolol maalmeedkooda ku dabara iyo waliba dadka reer guuraaga oo iyagu soo iibgeeya si ay ugu iibsadaan jicsinka ama cunnada ay cuni lahaayeen dhaqdhaqaaqa suuqa xoolaha nool ee magaalada Burco hoos u dhacan ballaaran ee ku yimid markii aan u kuurgalnay saaka xaaladda dhabta ee ka jirta suuqa xoolaha nool ee saylada magaalada Burco waxaanu halkaasi kula kulanay gudoomiyaha sariibadaha magaalada Burco Ismaaciil Jirda Cabdalle kaasi oo faahfaahin ka bixiyay sicirka uu marayo kala iibsiga xoolaha nool oo boqolkiiba 30 hoos u dhac ballaaran ku yimi iyo saameynta uu ku yeeshay bulshada ku xeeran gobolka Togdheer oo iyagu ganacsigoodu inta badan ku xidhnaa saylada magaalada Burco waxaan salaamayaa markii ugu horreysay awal labada channel ee halkan waraysiga kaga qaadaya Somali channel iyo Star TV oo aad iyo aad ugu hambalyeeyo iyagoo had iyo jeer arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer aad ugu hawlan waxqabadkoodu inuu wanaagsan yahay waana soo dhaweynaa laba tifo soo dhaweynaa waana mahadnaqayna inaan in xoolihii ay ku dhacay u yimaadeen hoos u dhac ku yimaadeen weyni hoos u dhacaas aan wali ku iman inta ku intii aan xoolo qalaynay laba qaybood labadaba ka yimi xaq hilibkana uu ka yimi xaq siladana uu ka yimi marka inta marka ka gudbo xoolaha iibkii la iibsan jiray wuxuu ahaa markii hore waxaan la siin jiray awrka ugu sareeya $1 buu gaaray maanta sababta waxa sababay xoolihii istaagay ariga la reeyo istaagay oo loo dhoofin jiray dekada laga dhoofin jiray laga jiray Sacuudi Imaaraadka iyo Sacuudiga laga jiray kiyo joogsaday neefkii ahaa $60 ahaa $8 iyo $9 wuxuu marayaa 60 aaminka daabixina wuxuu marayaa 150 neefkii daabaxa marka aan soo iibsano awrkiina laga jiray $800 ama $100 wuxuu marayaa $700 maanta marka anagu keena sarbadan soo qalana hoos dhac ba ku yimi oo la leebsan maayo marka waxa sababaya waxa weeyaan waa ganacsigii oo istaagay oo siiladii caalamku istaagtay ayaa u sababa annaguna marka bulshada hilibka oo jabinay waxaan jecelahay in ay soo qayb galaan bulshadu had iyo jeer ay ka faa'iideystaan hoos dhac oo yimi ka faa'iideystaan inay ogaadaan in wuxuu jabay way marka su'aalaha noodii wax hilibku wuxuu jabay hilibka hodhalada qalgari annagu hadii doonayaan sarbada yimaadaan waa u jabinaynaa waa jaban yahay xilligii ugu wanaagsanaa weeyaan nimka xoolo wanaagsan neefka ari wuxuu ahaan jiray markii hore $90 ama $80 buu gaaray waxa caqabada ugu weyn ku dhacday waa reemiyooyaan anagu waan iibsanaayo anagu waxaan lagu sii iibsanaa istanaaw laakiin caqabada weyn waxa ku dhacday waa dadkii ku noolaa xoolahan ku noolaa anaguna ku sii noolayn dadka ku dhacday saameysay dadka weyn si kastaba ha ahaatee saylada xoolaha nool ee magaalada Burco ayaa ka mid ah sayladaha ugu waaweyn mandaqadani Geeska Afrika وبرواقة آدن محمد شبكة عالمية أودوين نيوز مقالة Burco